intay maqlaysay intay fiirsanayso gacmaha kor u taaga ilaahay uu roob khayr qaba ilaahay uu roob khayr qaba ilaahay roob khayr qaba dhaqsan ugu keen ilaahay rabbi ummadda noo badbaadi bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam wabacd maanta oo bisha maaris tahay 24 waxaan jeclahay oo doonayaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego inaan ahay musharax madaxweynaha dalka Soomaaliya inaan u sharaxanahay musharaxnimadaydu way daahday laakiin ilaahay baan maaragtay ka baryahay intaa in uu ii fududeeyo haddana wuu ii fududayn doonaa waana noqon doonaa ilaahayna ku kalsoonahay inuu ducadayda aqbali doono ilaahay baan ka baryayaa in uu ducadayda aqbalo dalkaana uu madaxweyne iiga dhigo sidaad ogtihiin dalka Soomaaliya waxaa ka jira dhibaato badan diintii oo 10 firqa noqotay qabiilkii oo dib loogu laabtay waa hore waa laga soo tagay hadda dib loogu laabtay ayadoo oo had iyo jeer diinta iyo qabiilka siyaasadda loo adeegsado siyaasadii waxay noqotay mid lagu danaysto dadkana haba yaraatee aan loo danayn sidaas darteed waxaan doonayaa ilaahay hadduu ii garto waan aad iyo aad ayaan ugu rajo weynahay waxaan ballan qaadayaa ilaahay dartii inaan dadka diinta iyo dalkaba ugu shaqeeyo inaan diinta midayno inaan dadka qabiil ka saarno inaan kulli Soomaali oo dhan ka dhigno dad walaala innamal mu'minuuna ikhwa ayaa ilaahay yiri kulligeen dad muslimiin nahay inaan mu'miniin noqono oo ilaahay u laabano dhibkaan oo dhan waxa noo geystay waxa weeye diintii ayaa la garab maray diintii islaamka oo dhaqankeena ku jirtay oo aan ku soo dhaqmi jirnay ayaa banaanka tashwiish looga soo furay markaasna waxaa yimid khilaafkiina wuxuu noo keenay dhibaato iyo caro ilaahay carada ilaahay si aan uga baxno waa inaan ilaahay kaashanaa oo ilaahay barinaa laa xawla walaa quwata illaa billah cid wax siin kartaa qof ma jirto ilaahay mooye inaan ilaah bariga badino kulligii ilaahay u laabanno kulligii toobadii ilaahay wuxuu na faray aanu fulino siday tahay u fulino inaan kitaabka ilaahay ku dhaqanno oo ka dhigano tiirdhexaadka xukunkayga iyo cadaaladdeeda inaan ka dhigano cadaaladda dadka sidaad ogtihiinba cadaaladii waa laga tegay kulligeenna waxaa loo baahan yahay haddaan cadaalad la helin waxba ma jiraan dadku kulligiis wuxuu noqonayaa dad aan maaragtay qof wax celinayaa ma jiraan qofka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu nagu hago oo nagu horkaco oo nooga raalli noqdo in aanu diinteeda adeecno dadkayga iyo diinteeda iyo dalkaygana wuxuu qabanno dhib kale ka saar waxaan ognahay in ummaddii Soomaaliyeed kulligeed qofkii hadlaaba uu yiraahdo beesha caalamka war beel caalam wax nooma taraysee rabbil caalamiin kan quskano ilaahay baa waxna siin kara ilaahay baa faqriga naga saari kara ilaahay baa dhibka naga saari kara ilaahay baa nabadda noo keeni kara nabad la'aan waxba ma hagaagaan waxaan rajaynayaa haddii ilaahay ii doorto inuu meeshaa i geeyo madaxweynaha dalkan iga dhigo inaan diinta iyo dalkana u adeego iyo ummadda isla markaasna amniga dalka inaan sugo aan la isku halayn aan maaragtay qof dariiq istaaga iyo
kuwa dadka laaya iyo kuwa qarax sameeya midna inay aradan ka dhamaadaan baan ilaahay ka rajaynaya waxaan ballan qaadayaa oo ilaahay agsana ka ballan qaadaya ummadda horteedana ka ballan qaadaya inaan dar ilaahay ugu shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed dalkaana ku badbaadiyo hadalkaani waa hadalkeena waa iclaan kaliya inaan sheego inaan murashaxa madaxweynimada Soomaaliya madaxtinimada Soomaaliya cidda kaliya oo aan tala saaranayaana waa ilaahay waxaan ku rajaynayaa ilaahay inuu aqbali doono anuguna amaradiisa iyo tilmaamihiisa iyo wixii uu noo qoray kitaabkiisa quraanka ah inaan ku shaqeeyaan ballan qaadaya ummadana intaas u dana dadka intaas u dana dalka intaas u dana in diinta khilaafka laga saaro qabiilka qof waliba waa yahay taarifo baa ilaahay ya litaarifo ayaa ilaahay inaanu isticmaalo inaanu isticmaalin in ama aan isku gumaysano ama aan siyaasad ka dhigano ama aan wax ku dillo inta iskaashano ama aan dadneeda aan dhulka ma deey kartaan oo anagiisna waxa ka fiican in aynu qabyaaladaas meel iska saarno si waa ka baxnay waaya dhexe hadda nagu soo laabatay sideeda ay nooga baxday oo fiicnayd inaynu noqono amnigooda iyo nabadgelyadooda la helo mashaariicdooda iyo wixii khayraadkooda u yaalana in loo soo saaro oo ummaddu ay wax ka dhigato waxaan rajaynayaa haddii aan madaxweyne ka noqdo carradatan inaan loo baahan muddo gaaban gudaheed in loo soo shaqo tagi doono kuwa iyaga naga qaxay oo halkaa baadariyaashu ay ku tashkiiliyaan ama sakhraaniin iyo xashiish ku cabaan ama Yurub iyo Ameerika ku xiranna inaan dib ula soo qorno dadkayga inaanu ayaga tashkiilsano inaanu ummadeeda u ducayno inaan maaragtay aanu noqono dal xor ah oo diinta islaamka ku dhaqma diinta islaamka ku dhaqmayno dad baa waxa u yaqaaneen shabaab iyo daacish iyo alqaacida iyo islaamiyiin kuwaas oo islaamka soo horjeeda waa la dagaalamayna dagaal ayaan ku qaadaynaa waan la dagaalami doonaa diinta islaamku terrorist maaha xaq jir maaha wax ma disho xaq darro dadku kuma layso diinta islaamku kaliya islaam waxa loo yiri waa nabad salaam macnaheedu nabad weey inaanu nabadda ku dhaqano ummadda ilaahayna maaragtay u barino kulligeena ummadda Soomaaliyeed waxaan idinku wargelinayaa in loo baahan yahay inaan ilaahay u laabano war qof walba ilaahay bari cid kale ha bari cid kale oo ku siin kartaa ma jirto illa ma sha Allah waxaan ilaahay doonin ma helaysid mana arkaysid ilaahay ku garan awood malihid annagu awood malihin ducafaa baan nahay ilaahay baan abuurtay asaan ka sugeynaa inuu awoodna siiyo inuu dhaqaalana siiyo inuu aadaabna siiyo inuu naga xarimo dhiigga dhexdeeda ah inaanu isdilka iyo dhibaatada iyo qabiilka iyo inaanu ka gudubno ayaan u baahanaa waxa fiican inaan raacno aayadda quraanka ah waqti sameeyo bihabillahi jamiican wala tafarraqu war aan isku mid noqono oo itixaad sameeyno gacmaha aynu isqabsano si aan wax kasta oo naga hor yimaadaba aan wax haleelano ama uga boodno waxa annaga leh dadka iyo dadka waa dadkayga dhulka waxa loogu jira annaga leh khayraadkayga la soo baxayna inta aan aamino ilaahayna aan aamino ilaahay aan isku tiirsano ilaahay darti kulligeen aan u wada shaqeyno waxaan kaloo rabaa inaan maanta wax noogu daran waa abaar baa dalka ka jirta ummadii iyo xoolihii way baaba'een intay maqlaysay intay fiirsanayso gacmaha kor u taaga ilaahay oo roob khayr qaba ilaahay oo roob khayr qaba ilaahay oo roob khayr qaba dhaqsan oo keen ilaahay rabbi ummadda noo badbaadi ilaahuna badbaadi annaga iyo xoolaha yaga iyo beeraha yaga ilaahuna badbaadi qof kasta oo fiirsanaya ama imaqlahayo gacmaha kor u taago ilaahay bari haddaan inteenaasi isku darsano ilaahay waxaan ka rajaynayaa saacado maalmo gudahood in roob khayr qaba ilaahay noogu keeno ilaahay asaasan ka baryahayaa intii wixii ka soo harana hadda waa iclaamin kaliya dib baan ka soo sheegi doonaa marka